قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز kusoo dhawaada daawadayaal warka galcad miidiya qodobada ku daawan doontaan waxaa ugu dooran shirka guddiga amniga Jubbaland oo looga hadlay maxkamadeyntii Cabdirashiid Janan iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Jubbooyinka wariye Cabdirasaaq Teera oo xiriir la leh fila Soomaaliya oo laga baadigoobayo Puntland kadib markii uu soo xaday xog halis ah u dhaxaysa Siciidan iyo Imaaraadka qarax weyn oo Muqdisho ka dhacay xalay shirkadda Jubba Airways oo dacwad ka furtay Kenya dibna loogu fasaxay shatigii Soomaaliya maamulka ay dawladda Soomaaliya u dhisay Jubbaland oo la ogaaday halka ay xarun u noqon doonto iyo Beela Axmed Madoobe farmaajo soo kala dhex galay shaki ra'iisul wasaare Kheyro daafuray nidaam lagu xoojinayo maamulka maaliyadda maamulka degmada Buula Bardo oo xilalkii laga qaaday iyo muhaajiriin ku dhintay dooni ku degtay meel ku dhow Lambaduusiya hagaag hadii aad ugu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho wax kasto aan channelkan soo gelino intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز shirka guddiga amniga maamulka Jubbaland oo bishiiba mar la qabta ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kulanka ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxaana ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland kuwa xooga Amisom iyo xubno badan oo ka socday madaxtooyada maamulkaasi kulanka ayaa waxa looga hadlay qodobo badan sida ka xoreynta Al-Shabaab deegaanada ay ka joogaan Jubbooyinka xilliga ay dhacaysa caleemasaarka Axmed Madoobe xoojinta amniga Jubbaland iyo maxkamadeyntii wasiirka amniga maamulkaasi Janan oo maalmo ka hor maxkamad lagu soo taagay Muqdisho xubnihii shirka ka hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku tumanayso sharciga dalka u yaala kadib markii sida ay sheegeen dawladda wali sharci darro ugu xiran yahay wasiirka amniga maamulka Janan iyo taliyihii ciidamada ka howlgali jiray degmooyinka Doolow iyo Beledxaawo madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa shirka markuu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay wuxuuna yiri xoreynta deegaanada maqan howlgaladii socday loogu gol lahaa in Jubbada Dhexe gacanta loogu soo celiyo in la dardar geliyo waxa laga hadlay caleemasaarka xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowladda Jubbaland inay dhacdo markii martida loogu talagalay soo dhameystiran shirku waxa kale oo lagu soo qaaday xaaladda wasiirka amniga dowladda Jubbaland ee ku xiran Muqdisho ku afduuban iyo mas'uulka kale Buulaadan oo runtii in badan dowladda Jubbaland ay ka hadashay shacabka reer Jubbalandna ay dareenkooda muujiyeen say ugu xun yihiin hase yeeshee dowladda iyo cidda gacanta ku haysa ay dhag jala qusin waayeen inaan mar kale ku celino Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed waxa aad iyo aad loogu talinayaa inay shuruucda iyo xeerarka dalka u degsan ku dhaqmaan taas oo ummadda adduunka ku nool oo dhan ay ku dhaqanto haddii xeerarka iyo shuruucda dalka u degan lagu dhaqmi waayo waxaan dib ugu noqonaynaa fawdadii dagaalada sokeeye iyo in qarannimadii Soomaaliya la waayo marka walaac laga muujiyay xukuumadda hadda dalka taladiisa hayso sida ay ugu tumanaysa xeerarka iyo shuruucda dalka u degsan sida ay u inkariyaan sareynta sharciga wasiir xasaanad leh halgama ah dalkiisa dadkiisa intaas oo jeer u dhaawacmay inay horumar iyo ammaan ku noolaadaan in dawladdiisii ay saa ula dhaqanto markaana Puntland magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa laga baadigoobayaa wariye Cabdirasaaq Teera oo kamid ahaan jiray wariyaasha Hargeysa wariyahan oo dhowrkii cishe la soo dhaafay si dhuumaaleysi ah ku joogay Boosaaso ayaa la xaqiijiyay inuu ka guuray hotel uu ka deganaa magaalada isla markaana shalay uu iskaga soo baxay magaalada Boosaaso waxaa la sheegay intuu joogay magaalada in uu duubtay muuqaalo ku saabsan dekada garoonka diyaaradaha iyo dad kale oo dhaliishan dawladda Imaaraadka magaalada Boosaaso ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ka socday baaritaano lagu sameeyay xaafadaha ay ka kooban tahay hoteelada ku yaala magaaladaasi gaar ahaan hotel Jubba oo la sheegay inuu deganaa Cabdirasaaq Teera maalmihii u dambeeyay ciidamada amniga ayaa rumaysan in wariye Cabdirasaaq Teera uu wali Boosaaso ku jiro balse ilo xogogaal ah oo ka tirsan fila Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in Cabdirasaaq Teera uu ka soo baxsaday Boosaaso isagoo haya muuqaalo badan oo xaqiijinaya xiriirka halista ay u dhaxeeya Siciidan iyo Imaaraadka maamulka ay dawladda Soomaaliya u dhisay Jubbaland oo la ogaaday halka ay xarun u noqon doonto
sida aan xogta ku helnay maamulka cusub ay dowladda Soomaaliya u dhisaysa Jubbaland ayaa la ogaaday halka ay u noqonayso xarun ilaa laga xoreynayo magaalada Bu'aale ee caasimadda gobolka Jubbada Dhexe ahna caasimadda Jubbaland. Xogtaan helnay oo ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa inoo sheegay inay tahay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Maamulka cusub ayaa noqon doona mid ay aqoonsan tahay dowladda federaalka, sidoo kalena la isku dayi doono in beesha caalamka laga dhaadhiciyo inay aqoonsato, inkastoo aan la hubin inay taasi dhici doonto. Go'aankan ayaa waxaa si gaar ah u qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka soo loolanka dowladda federaalka iyo kan Jubbaland ay xiisadan ku riixayso loolan u dhaxeeya beesha uu ka soo jeeday Axmed Madoobe iyo Farmaajo oo sanado badan isku haya maamulka Kismaayo. Qorshaha cusub ee dowladda ayaa ka sii dari doona xaaladda Jubbaland oo laga cabsi qabo inay gaarto heer dhiig badan uu ku daato. shirkadda Juba Airways ayaa dacwad ka furtay maxkamadda sare ee Kenya iyadoo ku dooday in diyaaradii Sabtidii tagtay magaalada Kismaayo ay fasax la'aanteeda isticmaashay ruqsadeeda. Juba Airways ayaa kiiskeeda ku sheegtay in diyaaradan oo ay lahaayeen ganacsato ku dooshay ruqsadda Juba Airways iyadoo aysan wadan duuliyaashii shirkadda isla markaana aysan shirkaddu ka warhayn. Diyaaradda ayaa waxaa duulinayay nin lagu magacaabo Alakis oo Kenyaan ah oo la rumaysan yahay inay lacag siisay Jubbaland. Kiiska Jubbaland Airways ay u gudbisay maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku eedeeyay Alaksan inuu ahaa duuliyihii diyaaradda Kismaayo ka degtay inuu waday diyaarad uu magaca Jubbaland Airways ku diiwaan gashan. kiiska Juba Airways ay u gudbisay maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku eedeeyay Alakis oo ahaa duuliyihii diyaaradii Kismaayo ka degtay inuu waday diyaarad oo magaca Juba Airways ku diiwaan gashan. Juba Airways ayaa dalbatay in Nairobi lagu xanibo diyaaradii ku dooshay ruqsadeeda. Talaabada ay qaaday Juba Airways ayaa timid kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku wargelisay in lagala laabtay ruqsadii ay ugu howlgalaysay Soomaaliya. Sida aan xogta ku helnay wada hadal dheer u socday Juba Airways iyo dowladda ayaa mas'uuliyiinta Juba ku doodeen inaysan ka warhayn diyaaradii tagtay Kismaayo ee ruqsadeeda lagu kaxeeyay. Juba ayaa codsatay in ruqsadda dib loogu fasaxo isla markaana kiis karan ah arrinta u gudbinaysa maxkamadda sare ee Kenya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa daafuray isku xirka nidaam maaliyadeed oo aad u casri ah. Nidaamku waa mid casri ah ayaa maamulka lacagaha bankiga dhexe ee dalka ay ka qayb qaadanayaan daahfurnaanta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo fududeynta wada shaqeynta bahda maaliyadda dalka. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe uga mahad celiyay nidaamkan cusub oo qayb ka ah tallaabooyinka dhiirigelinaya dadka Soomaaliyeed oo dhan ee qaybta ka qaadanaya horumarka. waxaan aad u jeclaan lahaa in hawshan aad qabateen in laga sii shaqeeyo in lagu faafiyo dhammaan hay'adaha dalka oo dhan. qofka Soomaaliyeed oo dawladda u shaqeeya xuquuq ku leeyahay si xuquuqdiisa u helo bil walba marka ay bisha dhamaato waa inuu mushaar helo. mushaar si uu helo waa in amaanada loo dhiibaan xajin karnaa. qof walba oo ganacsada oo canshuur bixiyana waxa uu rabaa inuu og yahay canshuurtii uu bixiyay meesha uu ku bixiyay. qof walba Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed ay adeeg u tahayna wuxuu rabaa adeeg inuu helo. saddexdaas shayba waxay ku xiran yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bankiga siday wada shaqeeyaan. nidaamkan markay maanta wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhex noo soo bandhigeen oo iyaga kaliya isku xiran yihiin waxaan dhihi lahaa in lagu faafiyo dhammaan hay'adaha dalka wasaaradda mas'uuliyaddaas qaadato. waxaa muuqata dhaqan bedel inuu dalka ka jiro. dhaqan bedelka dalka ka jira idinka hormuud ah laakiin hormuudkaas wuxuu ku saleysan yahay dadku inay aamini karaan shacabka Soomaaliyeed. markaana Hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hiirshabelle ayaa waxay xilalkii ka qaaday gudoomiyihii degmada Buulabardi ee gobolka Hiiraan. wareegta ka soo baxday xafiiska wasiir Maxamed Cali Caadli ayaa lagu sheegay in xilalkii laga qaaday gudoomiyihii degmada Buulabardi Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Duurow iyo duqii degmadaas Maxamed Fiido Cawaale. sidoo kale wareegtada ayaa waxaa lagu sheegay in xilalka gudoomiyaha degmada Buulabardi si ku meel gaar ah lagu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada Liibaan Cabdi Burisow. sababaha xilka qaadista gudoomiyaha degmada Buulabardi ee duqii degmadaas ayaa waxaa lagu sheegay kadib markii la arkay isqabqabsi ka jira degmadaas iyo la tashiyo la sameeyay madaxda sare ee Hiirshabelle. markaana daawadayaal warkii dibadda
muhaajiriin ku dhintay dooni ku degtay meel ku dhow Lambaduusiya. ugu yaraan 9 qof ayaa geeriyootay kadib markii dooni ay saarnaayeen muhaajiriin ay ku degtay meel u dhow jasiiradda Lambaduusiya sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga. doontaan siday muhaajiriinta ayaa rogmatay iyadoo oo ay dooni ay leeyihiin ilaalada Talyaaniga isku dayeysay inay muhaajiriinta ka soo qaado meel badda u jirta 10 kiiloomitir jasiiradda Lambaduusiya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ilaalada xeebaha Talyaaniga. doomo iyo diyaarado qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa wali raadinaya dad la laayahay. daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo channelkan soo gelino. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.